afhayeenka laamaha ammaanka gaashaanle dhexe Qaasim Axmed Roble oo maantay qaybaha warbaahinta shir jiraayad uu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qorshaha laamaha amniga ee ku aadan sugitaanka ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. afhayeenka ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay diyaariyeen ciidamo dheeri ah kuwaas oo sugi doona ammaanka magaalada Muqdisho marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaanka. arrintaas si fiican bay u dhacday si fiican bayna u socotaa habeen iyo maalin 24 saac waxaa la xaqiijinayaa magaalada nabadgelyadeeda arrimaheeda meel kasta uu ku jiro wixii arrinahoo ka soo cusboonaadana dib ayaan maaragtaa isaga soo sheegaynaa hawlgalladii kale oo ayaguna la laba jibaaray ayay socdaan hawlgalladii magaalada lagu waday midka programka loo sameeyay bisha Soonqaad iyo programka loo sameeyay oo horey u soo socday oo asagana wax lagu daray oo baaritaankii magaalada iyo nabadgelyadii magaalada iyo arrimahaasina waa la laba jibaaray midkaanina mid kale oo lagu soo daray oo nabadgelyada bisha Soonqaad loola jeedo weeye ciidamo aad u tababaran oo maaragtaa diyaar ah oo la soo diyaariyay oo diyaar ah oo loo diyaariyay ama AMISOM ama Soomaaliha ahaatay ayaa jira oo dheeri ah marka intaas aan rabay inaan idin sheego. si kastaba hadalkan maanta ka soo yeeray afhayeenka laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan xarakada al-shabaab ay ku hanjabeen in ay siyaadin doonaan weerarada qaraxyada ah iyo dilalka qorshaysan ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaanka. Maxamed Bilegeele, Somsa TV, magaalada Muqdisho.